halkani waa deegaanka Fadhigaab oo ka tirsan degmada Garadag waxa ku sugan in ka badan 1000 qoys oo barakacayaal oo xoolahoodii ku waayay abaarihii dhacay mana haystaan guud ahaan adeegyada aasaasiga ah nolosha bulshada haddaba maamulka deegaanka Fadhigaab iyo dadka barakacayaasha ayaa waxay si wada jir ah uga warameen xaaladooda nololeed waxayna sheegeen inay qarka u saaran yihiin macaluul iyo haraad taasna ay sababtay abaarta baaxadda leh ee ku soo noqnoqotay gobolka Sanaag waxayna baaqayla dhaana u direen xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga ah waxaana hadaladoodii kamid ahaa waa qaxoontigii Fadhigaab ee Jibraltar weeye marka hore waa nabadgeliyo waxa weeyaan halkan waa qaxoontigii waa meeshii dadka la keenay ee qaxoontiga ahayd dadka qaxoontiga hoggaanayay dadkaas waa dad aad iyo aad u dhibaataysan markaan anigu magacayga iska warramo waa Axmed Ismaaciil kale waa gudoomiyihii Fadhigaab waxa weeyaan dadkana waa dad qaxoontiga waa dad aan daryeel qabin waa dad abaar haysato waa dad hadii laba ku yahay dhibaato badan soo haleeshay dadkaasi ma haystaan hooy male cunto ma haystaan caafimaad ma haystaan hadii laba ku biyihii waa cidhiidhi bay ku yihiin biyo ma hayaan dadkaas aad iyo aad u dhibaataysan yahay waxaan leeyahay hadday dawladda tahay hadday hay'adaha madax bannaan tahay hadday kuwa qaranka tahay hadday tahay wasiirada dibadejinta hadday tahay hadii laba ku rooyahay adduunweynaha waxaan ka codsanaynaa dadka waxaan leenahay dadkii qaxoontiga ahaa ee magaalada la yaado Shimbiratuuja kaamamka ugu horeeyay ee caalamiga ahaa ee adduunka weynaa ee la yaqaanay sidii madaxweynuhu u foosay ee dalka madaxweyne uga noqday wax badan baanu tabannay wax fara badan baanu tabannay cabashadayada qayladayada kadeelanaya Jibraltar hadaan nahay waayeelka ama culimada meelahan ku nool waxaanu qayladheelaan u diraynaa hadii la idmaayo madaxweynaha Soomaaliland iyo hadii la idmaayo dadka waxgaradka qayladheelankaas wuxuu ku saabsan yahay dadkan jooga kaamkan ee qaxoonti iyo hay'adaha adduunyada waxaan ku salaabiyaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaanu joognaa magaalada Fadhigaab kaamka la yiraahdo Bada Xariir waxaanu leenahay dawladda iyo hay'adaha iyo dadka dibadda joogaba waa lagu liitaa maanta bukaan baa ka dhacay gaaja ka dhacday haraad baa ka dhacay kaamkan waxaanu leenahay halala soo gaadho wax waayo maanta waqti bay ku jiraan halkan baan heshay oo na baabiisay oo na riftay oo maxay ahaaytay maata jilicsan oo maxay ahaaytay maata jilicsan oo hargab oo duumo farax buurbuurtay Honkebel TV degmada Garadag